wafdi ballaaran oo hogaaminayay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland oo ay qayb ka ahaayeen musharaxiinta Cabdirasaaq Cismaan Saalax oo u sharaxan golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo Mahad Ismaaciil Cali Abakar oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco odayaal waxgarad iyo siyaasi Axmed Nuur Faahiye oo ka mid ah mas'uuliyiinta kulmiye wafdida ayaa si ballaaran lagu soo dhaweeyay deegaamada Heere Jaamac Qabar Candho Dhexe Dhereyeley Beledhig Taalabuur iyo waliba deegaanka Maxamed Ugaas bulshada deegaamadaasi ku dhaqan ayaa sheegay inay yihiin xisbiga kulmiye codkoodana siinayaan labadan musharax waftiga ballaaran soo booqday maanta halka marti sharafka noogu ah ee murashaxiinta iyo gudoomiyaha iyo odayaasha ballaaran ee waftiga soconaya hadaan bulshooyinka reer Heeranahay anaga waxaan martina looga yahay inaan u codayno ayaa martina looga yahay anaga waxaan diyaar u nahay inaan murashaxiinta Cabdirasaaq Cismaan Saalax inaan cade iyo Mahad Ismaaciil Cali Abakar inaan oo ka sharxan kulmiye xisbiga kulmiye inaan u codayno ayaan diyaar u nahay soo reer Heeranahay ma diyaarna uma nihin ha diyaar baan u nahay inaan u codayno codka waxaan anagu markaa kulmiye aan nahay codka wala codaynaa labada musharax baan codaynaa markaa waa iyadoo taageersanahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waftiga ballaaran oo hogaaminaya Cabdirasaaq Axmed Maxamed Faarax iyo labada musharax ay ka mid yihiin Cabdi Cismaan Saalax Mbire iyo Mahad Xasan Cali Abakar waa magaalada Jaamac Qabar sidii xisbiga kulmiye loo aasaasay waxaanu ahayn xisbiga kulmiye magaaladan ahayd maantana waa isagii waxaan xasuustaa markii xisbiga kulmiye la dooranayay xisbiga kulmiye la soo aasaasay ayaan kun iyo boqol iyo konton cod ka soo saaray labada musharax ee ka xisbiga kulmiye ka sharaxan boqol baan dooranayna codkeeda ayagaanu siinayna meel kale marin mayno xisbiyada kale ee Soomaaliland ka sharaxan waxa nagu leeyahay martigelin iyo xaq dhowr iyo sharaf halka socod yaalo عدة حسبية كلا حكمة تيسا وحنا ذات هالكن تاقبر وكلمية إيش بكتوه بكعصو وحقيقة حسوسنا المرشح عبدالرزاق أستانتي سوا ساعد وساعد عن قانت كحرنا هاي كلا إن شاء الله تعالى وحرجيني يا معلنت بحين تتعين إلى ساعد دقفين مرشح كلا أو ترتمي دورشة قلا الديجان كنسكسيت كنا هاي أما أن وصلنا إسقنا وحويا والله بقولي اللح وحرجين إن شاء الله إن هذا نبلا من الجيف الدونين. وحياتي بلاتي الله ومعيت عودك هي فرقة. سواء كان نوما رجع غوره. نسكمو بعينك. ينوكوك وفرسناي. فرقة ولا كلمية. فرقة ولا كلمية. ومسكر رأسنا هاي. سأسكر رأسنا كلمية. أنا أعطانا معي غير عددها وحام ديارو معي. إيران عوينو إيران تاجنانو إيران شغلنا majority وعرّان عددها وحوي كلية عن تاجر سماي وحوي رجل دمر بور سو كلية منين سينا على بكر ينا عدو عوين ماينو وبلا تام قاوينا سولنا هنا يو إيران عدد عصادين نسان سياسة لنا قرآن مدوتي اسمعنا يوم كدشين معه أسوق وقديم هوي حديدني أصلا يا مسلم حديدني أصلا يبوي وقيال يا دمر ديار بانونا ما دام واساو سود ويسان مرتدينا inoo timi asoo aan u sooreeysan u soo dhaweeysan waxa idinka doonayaan inaynu garab iyo gaashaan u noqdo inaan meel kale marin taasoo inaynu codayno waxa weeyaan taasoo inaynu codayno codka inaynu siino labada musharax diyaar ma u nahay war ma u ciidiyabaynu sinaa iyo kulmiye jawaabtu maya war min bariis ka tagaya haddii alla ka dhigayo cod miisaan lana insha Allah ta'ala xildhibaanadan iyo kuwa kale ee xisbiga kulmiyadana way ka heli doonaan dharyada mid walba u sheegayna inay dharyalay tahay kulmiye asala oo aan marna meel u dhaqaaqin halka taagan dadweynaha sharafta leh ee halka kulmiye ku taageeradiisa u taagan ee codka siin doona labada musharax kala ah Cabdirasaaq Cismaan Saalax iyo Mahad Ismaaciil Cali Abakar musharaxiinta codka ay siin doonaan diyaarka u leeyihiin niyada ah oo magaaladu markeeda horeba ay kulmiye tahay cid kasta ha ahaatee waxaanu leenahay ku soo dhawaada musharaxiin haddii ilaahay ka dhigayo codkiina waa laydin hayaa reer Beledhigow inamada maraya ee Cabdirasaaq iyo Mahad inna isku lamaanay golaha deegaanka iyo baarlamaanka soo dooran maysaan waxa ku dooranaysan deegaannimo
dadnimadooda ka muuqata xusbigiinna soo jireenka ee aan cusbayn labadan oday inoo sharaxana waxa anaga halkaana soo mariyay culayska ay leeyihiin maanta hadii la yaado ina Ismaaciil Cali Abukar waa garanaysaan Soomaali baa garanaysa oo Afrika garanaysa oo Carab baa garanaysa oo cid walba waa garanaysa wixii uu qabtay deegaankeenan dhulkan aynu degannahay markii abaartiis 74 ay dhacday isagoo aan madaxweyne la tashan oo buuhood la jooga ayuu kaga dhawaaqay halkaasuu kaga dhawaaqay inay dhacday natural wax la yiraahdo disaster caami SNM waxa maqashay asaasayaashii SNM waxa aasaasay Ismaaciil Cali Abukar waxa la idinka rabaa ina cudud iyo cod iyo naf iyo maal iyo wax walba isla barbar taagtaan mahad Ismaaciil Cali Abukar iyo Cabdirasaaq Cismaan Saalax Faarax musharaxiinta Cabdirasaaq Cismaan Saalax iyo mahad Ismaaciil Cali Abukar ayaa bulshada deegaamadaasi u sheegay qorshayaashooda baahida qabto waa tay keentay way ka mid tahay tay keentay inaan xildhibaan ka noqdo aan soo doonto deegaanka baahida aan noqoto mid caafimaad mid waxbarasho mid shaqo sidii wax loogu abuuri lahaa maadaama aan ka soo jeedo xaq waxay ugu leeyihiin inaan u shaqeeyo oo aan xukunka gaarsiin doonaa oo aan noqon doonaa xiriiriyaha u shaqeeya gobolkan togdheer ee magaalo madaxiisu tahay Burco sidii aan iskugu xidhi lahayn ummadda iyo baahidooda sida wanaagsan lagu soo dhaweeyay ee sharafta leh ee wanaagsan qiimo weyn bay ugu wanta haddii ilaahay xilkan ugu guuleeyo aanu fariisano kuraasida aniga iyo mahadba kullu baarlamaanka weeyaano meelaha dib u eegi doono aanan ilaaweyn aan qalbiga ku hayn doono idinkana waxaan intaa idinka sii codsanaynaa qiimo iyo sharaf baad nooga mudantihiin inaad intaa ka sii badisaan oo aad foodkana maalinta 31 aad fartana siisaan gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xunif ayaa bulshada deegaamadaasi ku booriyay inay u codeeyaan musharaxiintan kulmiye waxaan aad ka mahadnaqaynaa runtii soo dhaweyntan aadka u qiimo badan aad ugu sharafteen marka waxaan u wada hadlayaa musharaxiinta kulmiye oo dhan ayaan u hadlayaa macnaheedu waxa weyn xisbiga kulmiye oo hadlaya waxaanu doonaynaa xisbiga kulmiye oo garanaysaan taariikhdiisa iyo halku ka yimi iyo halku ka bilaabmay maantana ay ka mid yihiin musharaxiintiisa labada inaan halka fadhiya waxa tartamaya ma aha labada inaan iyo inamada kale meelahan ku sawiran ma aha xaqiiqo marka laga hadlayo ma aha waxa weeye ama Ismaaciil Cali Abukar leh ama Siilaaye leh ama Muuse Biixi leh ama Maxamed Kaahin leh iyo Faysal Cali Waraabe ayaa tartamaya mara idinoo garaabi mayso Faysal baa kaga badiyay ragga guri wax ka weyl geliya uu dilaa waxa kale maqal jiray mira aan bislaan haddaad goosato waxa laga xaaraantimeeyaa adna inaad manafacsato way may bislaan geedkii ka jartay aduu ku cuni kari maysid waa xaasidino xisbiga kulmiye codkiina siiya labada nin ka siinayna ka kale kulmiyaha siiyo mahad cali goodir Ariel TV Burco